ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa xooga dalka qaybtooda 12aad ee ka howlgala deegaanada Galmudug ayaa waxa ay tageen magaalooyin ay maamulaan al-shabaab oo ay kamid tahay magaalada Camaare ee gobolka Mudug oo si dadban al-shabaab ay u maamulaan ciidamada ayaa howlgalo sheegay halkaasi inay ka fulinayaan waxaana hogaaminaya taliyaha ciidamada 12aad ee xooga dalka Qooja Dagaare waxaana halkaasi ay kula kulmeen shacbiga iyo sidoo kale maamulka magaalada Camaare ee gobolka Mudug iyagoona kala hadlay sidii la isku kaashan lahaa waxa ay tilmaameen in howlgalo halkaasi ay ka bilaabi doonaan isla markaasna dagaal ka dhan al-shabaab ay halkaasi ka sii wadi doonaan sida ay carabka ku dhufteen taliska ciidamada qaybta 12aad ee gobolka Mudug waa ka howlgala deegaanada Galmudug oo maanta gaaray magaalada Camaare ee gobolka Mudug ma ahan markii ugu horeysay oo ciidamada xooga dalka ay halkaasi gaaraan horay ciidamada danab ayaa u tagay magaalada Camaare iyagoo halkaasi shakhsiyad ay sheegeen in al-shabaab ay yihiin ay kala baxeen waxa isla markiiba marka halkaasi ay ka soo laabteen ka dambeysay in al-shabaab dhankooda ay halkaasi tageen ayna qodbado ugu qabateen dadka shacabka ee ku nool magaalada Camaare ee gobolka Mudug cabsi weyn ayaana soo wajahaysa dadka halkaasi ku nool oo u dhaxeeya gacanta dawladda iyo sidoo kale al-shabaab iyagoo aan ka fogeyn deegaanka Camaare ee gobolka Mudug